السلام عليكم soo dhawaada mar kale muuqaalkan kale maanta waxaynu ku eegi doonaa qabiilkan cajiibka ah ee qaabka lagu wada u sameeyay inay tahay qaabka koryada oo kale laba suulo kaliya ay lagu wada leeyihiin qabiilkan waxa lagu magacaabaa Fidoma waxaanay degan yihiin dalka Zimbabwe maantana ninkan ayaa booqan doona isagoona waqti gaadhay 24 saacadood ama hal maalin la soo joogaya sababta ay lagu wada sidan u noqdeen soo wareysanaya iyo waliba qaabka ay u nool yihiin haddaba markii ugu horeysaan daawanaysa haday tahay waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saarto muuqaalkana like saara ugu horreyn daba ninkan ayaa sheegaya inuu sugayay waqti gaadhay 2 sano si uu halkan u imaado laakiin ay u suurtagal weyday balse ugu dambeyn imka uu yimid haddaba qoladan uu maanta booqanayo marka hore tiradoodu waxay gaadhisay 10 qof laakiin imka wax yar ayaa ka soo haray haddaba ninkan iyo dadkii la socday waxay 600 kiiloomitir u soo socdeen waqooyiga dalka Zimbabwe halkaas oo ay degan yihiin qabiilkani dhexda markay soo socdaan cagaf ayaa wadada ka xidhaysa iyagoo gaariga ka degaya oo dadkii la riixaya inta kadib way soo dhaqaaqayaan 8 saacadoodna waxay ka soo soconayaan magaalada Harare oo ku taala xadka Zimbabwe iyo Mozambique waxayna ugu dambeyn soo gaarayaan tuuladii yareed ee qabiilkani deganaa markay sida tuuladan yar u soo gaaraan ninkan markaba waxa la barayaa qaabka la isku salaamo dadkii meesha marayna waxa uu ku salaamayaa qaabkii salaantooda ahayd Mamukase kadibna dadka meesha jooga ayuu la hadlayaa isagoo ugu horreynta fadhiisanaya dirkad yar horteedana waxa uu kula kulmayaa gabadh ciyaal wadata lugaheeda hadda eegtana waxaad arkaysaa inay yihiin qaabka aynu sheegaynay ninkan haddaba wuxuu odhanayaa dadkan markaaba isagama odhan karo lugihiina tusa laakiin waa inaan qaabka iyagu dhaqmayaan ula dhaqmaa si aanu isku fahanno kadib waxa isku dayaa inuu la jaaso meel ay iskugu soo urureen iyagoona aad ugu faraxsanba ninkan caddaanka qaabku u dhaqmayo waxaan isku dayaa inuu madadaaliyo oo uu la ciyaaro ama uu la jaaso I throw down my signature move. sidoo kalena ninka la socday cameramanka isaga laftarkiisuna waxa uu sameeyaa xarakaad ay ka helayaan kadib ninkan mar labaad waxa isku dayay inuu la sameeyo waxay sameeyaan waxaanu la sameeyaa weel dhoobo laga sameeyo isagoo sheegaya in sanadkiiba mar ay isku imaadaan oo ay qaabkana kale u sameeyaan dhoobada laga sameeyo weelka marka la tuso qaabka loo sameeyana isaguna wuxuu isku dayay inuu sameeyo isaga laftarkiisu isaga iyo ninka la socdaaba markay isku dayaan inay sameeyaanna labadooduba waxay sameeyaan mid aan fiicnayn marka loo eego kuwa iyagu sameeyaan laakiin laftarkoodu way dadaalayaan dhammaantoodna dadku aad bay ugu wada qosqoslayaan markay ka helaan qaabkii ula dhaqmayaan kadib markuu ka soo dhawaado dadku la ciyaarayayna wuxuu wareysanayaa nin lagu magacaabo Mike oo ah ninka uu sameeyay dadkan ama qabiilkan iskuul yar oo ku yaala tuulada oo ay wax ka dhigtaan isaga laftarkiisuna uu dhigo ninkan luqadda Ingiriiska si fiican ayuu u hadli karaa waxaanu sheegayaa imka ka hor inaanu dad badan oo ajaanib oo meesha midaan ku arag su'aasha ugu horeysa ninkan weydiinayana waxa weeye sida la sheegay buu ka oranayaa meeshan waxa jooga ama qabiilka dadkani lugahooda waxay ku leeyihiin laba suul oo kaliya ama qaabka goroyada kale ay lugahooda yihiin arrinta ka waran ayuu ka oranayaa isagoo sheegay inay jirto arintani laakiin badankooda aanay lahayn oo qaar kamid ay leeyihiin lugahaas waxaanu sheegayaa meesha ay ka timid inay tahay jiinis hore oo dadkan ay lahaayeen amaba jiinis qaldamay waxaanu bilaabayaa inuu sharaxo sida ay waxan ku dhaceen inkastoo aanay dhibaato sidaas ku hayn ayuu oranayaa oo nolol maalmeedkooda caadiga ay si fiican u wataan wax dhibaatana aanay ku hayn oo aan xataa dadka aan lala yaabin dadka lugaha leh wax walba oo dadka caadiga ee lugahooda caadiga yihiin ay sameeyaan iyaguna ay sameyn karaan geedaha ay kori karaan kubadda ay ciyaari karaan day-to-day life, no problem. They play like others. kadib ninkan caddaanka ayaa ka odhanaya waqtiga hore dad badan oo noocaas ayaa jiray soo maaha waxaan odhanayaa haa markii hore way badnaayeen iyaga laftarkooduna dhibaato umay arkayn oo waxaan inay dhibaato ku tahay umay arkayn ayuu odhanayaa kadib ninkan caddaanka wuxuu isku dayay inuu sharaxo qaabka ay u dhacdo waxani ama sayniska waxaan ka dambeeya xanuunkan waxaa loo yaqaanaa ostrich foot syndrome waana xaalad naadira oo saamaysa jiiniska qofka gaar ahaanna waxay saamaysaa faraha iyo suulka lugaha qofka xaaladan ay ku dhacdana waxaa ka maqan 3 farood ee dhexda ee lugaha suulka iyo far kale ayuunbaa ku taala labada farood ee keliya ku yaalana way isku soo qalloocsamayaan oo iska soo horjeedsanayaan marka si loo eegana dadkani faa'iido ayay noqotaaba waxay uga faa'iidaystaan qaabka gacmahooda oo kale geedaha markay korayaan oo kale aad bay uga caawisaa kadib ninkan caddaanka wuxuu weydiinayaa ninkan madow waa maxay dhibaatooyinka ugu badan ee qabiilkan Fidoma la yiraahdo ay la kulmaan waxaanu sheegay inay aad macaluul ugu dhimanayaan amaba waxay cunaan aanay haysan dhaqaale yaraantaas iyo cunto la'aantaasina ay waxyaabo fara badan ku sababtay
oo xataa la odhan kara dhibaatadan laftarkeeda inay iyadu sababtay ninkii madowna wuxuu sharaxaya qaabka sidan u dhacday waxaan odhanayaa dadkan markii ay waayeen waxay wax siistaan ama waxay cunaan ama dhaqaaluhu ku yaraaday waxa meesha ka baxday sidoo kale waxbarashadii iyo aqoontii ay yeelan lahaayeen aqoon darridaasina waxay sababtay odhanaya dhibaato aad u weyn taasoo anigu aan isku dayay imka inaan xalliyo oo ah sababta aan halkan u joogo ee aan si iskaa wax u qabsaa aan iyaga wax ugu barayo dhibaatadaasina waxay tahay buu odhanayaa oo weliba uu aaminsan yahay inay arrintani ka dhalatay arrintan lugaha aan dabiiciga ahayn qofku inuu yeesho inay ku dhaqmeen arrin ay ku sababtay aqoon-yarida iyo jaahilnimadu oo ah halkii ay ka raadsan lahaayeen dad kale oo ay isguursadaan marka ay guursanayaan in iyaga laftarkooda ay isguursadeen oo ay dhexdooda iska guursadeen ninka caddaanka ayaana soo dhexgelaya wuxuu odhanaya ma waxaad uga jeedaa qofku walaalkii uu guursan karaa ama in adeertii amaba walaashii waxaan ku odhanayaa haa iyagaa isguursaday waana sababta ka dambaysa inay dhibaatooyinkan jiiniska khuseeya ay imaadaan ee qofku uu yeelanayo lugaha uu ku yeelanayo laba suuloo keliya tanoo ay sabab u tahay aqoon-yarida iyo jahliga dadkan haysta waxaanan aaminsanahay buu odhanayaa haddii aqoon ay yeeshaan oo ay wax bartaan oo ay wax fahmaan inay raadsan doonaan markaay guursanayaan dad ka fog amaba iyaga waxa loo yaqaanaa qabiilkan dhooma ayaa loo yaqaanaa inay raadsan doonaan qabiil kale oo iyaga ka shisheeya oo loo yaqaano shona people sidaa daraaddeedna ay dhibaatadani meesha uga bixi karto reedi iminka dad badan way ku dhacday istilna sababtaa ilaa iminka u socotana ay tahay inay weli jiiniskooda ku jiraan jiiniskaa hore dadkaa hore isguursaday ama walaalaha ama in adeerkaha ama aadkiisugu dhowaa isagoo ninkani soo jeedinaya waxaa loo yaqaano cross breed oo ah sida caadiga dadku iska guursadaan dadkaa fog inaad guursato haddii kalena dhibaatadu sidan bay iska ahaan doontaa buu odhanayaa ninkan madoobineyntii taaggii waxa uu isku dayayaa inuu wax fahansiiyo dadkan oo waxa uu fahansan yahay uu baro si ay dhibaatadan uga baxaan intaa kadib ninkii caddaa waxay israacayaan ninkii mike lagu magacaabayey si ay cunto u doontaan waxaana kaxaynaya wiil dhalinyaro ah kaasoo isaguna xanuunkan qaba ama lugihiisu sidaasoo kale yihiin cuntada lasoo guranayaana markan wax kale ma aha ee xidid ayaa lasoo guranaya xidid dhulka lagu aasay kaasoo inta la karsado cunto laga dhiganayo waa cunto la-aanta meesha ka jirta heerkay taagan tahay kadib ninkan cadi waxa uu ka sheekaynayaa in dadkan amaba qabiilkan fidooma loo yaqaano barakicin aad u ballaadhan lagu hayo oo dhulka ay la qabsadeen ee iyaga iyo awowayaashoodba ay kasoo jeedeen laga barakicinayo oo la rabo in la magaaleeyo iyaguna waxyaabaha ay la qabsadeen laga kaxaynayo oo tusaale ahaan markii hore haddii ay ahaayeen dad la qabsaday inay ugaadhsadaan inta meelo kaloo magaalooyin la geliyo beera lagu falayo waxaanu sidoo kale sheegayaa in qabiilkani waqtiyadii hore uu badnaan jiray iminkana 2 tuulo oo keliya ay ku nool yihiin ilaa dad 1,000 qof gaadhi ay kasoo hadheen intaa kadib ninkan caddaanka waxa uu sheegaya inuu hore u maqlay in dadka qabiilkan ay lugahooda sidan ay yihiin ay ku fiican yihiin sida dhirta loo koro sidaa darteed uu rabo inuu tijaabiyo kabaha ayuu ka odhanayaa iska bixiya oo geedaha kora isaga laftarkiisuna uu la korayaa iyaguna qaab degdeg ayay markaaba u korayaan maadaama dhirtan la qabsadeen isaguna marka dambe uu la korayaa ninkii kale wareysanayay ee afrikaanka ahaa ayaaba ninkii caddaa geedka marka dambe kasoo xambaaraya waxaanu ka odhanayaa aad baad xoog weyn tahay I weigh like 180 pounds, bro. Yeah, You're a monster. I am fit and strong, my friend. Fit and strong, I can tell. Okay, How do we get let's down? rope, yeah, let's rope down. Okay. intaa kadib waxaa la isku diyaarinayaa in la karsado wixii la cuni lahaa ku yaroo kalena waxa uu soo qabanayaaba 2 jiir oo lagu darsan doono cashada qoladini jiirka ay cunaanba ninkan caddaankaana uu la cuni doonaa laakiin intaan cashada la samaysan ninkan waxa uu gaadhigiisa kasoo saaraya kubad si uu la ciyaaro ninkii mike lagu magacaabaya ayaan ula ciyaari doonaa iyo ciyaalkii meesha joogay 2 tiim ayana kala noqon doonaan mike iyo ninkii caddaa kubadda ayana halkaa ku wada ciyaari doonaan Thorn bushes everywhere. Hey. Ooh, nice save. Watch out for the thorns. qaabkaas ayna isku madadaalinayaan oo ay kubadda halkaa ku ciyaarayaan intaa kadib ninkii caddaa waxa uu markan la kulmayaa gabadh kale oo iyaduna ah dadka xanuunkani ku dhacay ee lugahooda sidaasoo kale yihiin gabadhaasoo iyadana ka tirsan dadka tuulada degan taasoo korin doonta cashadii la diyaarinayey maadaama wax kariska si fiican u taqaano xididada ayaa la karinayaa sidoo kalena waxaa loo dubayaa casuumaddii ninka lagu casuumiyey maanta ay ahayd 2 jiir dadkan casuumadoodu waa jiirarka marka lagu keeno waa lagu casuumiyey maalintaa cadaydina way dhacaysaa kadibna ninkan waxa uu ka sheekaynaya waxyaabaha loo diyaarinayo sida in riyayo waxaa hataa loo qali doono waxaanu yaro duuduubayaa darkadaha ay ku jiraan iyo sida wax u karsadaan iyo dhismayaashooda si yihiin intaa kadib habeenka ayaa madoobaanaya cashadii ayaana loo karinayaa ninkii mike ayaana cashada usoo qaaday waxaan u sheegaya waxay la yaaban yihiinba ninkan cadi miyuu cuni doonaa waxaan aanu karinay ninkan cadi bariiska muu cuni doonaa bay leeyihiin jiirarkan aanu samaynay talo muu cuni doonaa waxaasay weydiinayaan buuri ninkii kale uga soo turjumayey dhammaantoodna way soo wada dul istaageen bal si ay u eegaan inuu ninkan waxaan cunay in kale kadibna labadii nin cadcaddaa iyo maykna cashadoodii loo keenay ay iska cunayaan jiirarkiibay iska cunayaan loo keenay kuwa yarraana sacabkay ka dultumayeen wax walbay samaynayaanna way eegayeen marka dambena ragga cadcadda ciyaalka ayaba ciyaar dhaqamoodkoodii iyo habeenkii iskala ciyaarayaan The music kicks up, and we throw down again.
dambeyntina muuqaalku halkaas ayuu kusoo gabagaboobayaa. Haddaba saaxiibayaal, haddaad muuqaalkan wuxuun ka faa'iideen, fadlan muuqaalka like saara, sidoo kale haddii aad nagu cusub tahayna subscribe noo saar. Aad baad mahadsantiin.